daawadayaal ardaydan qiimaha badan waa ardayda xufaadda ah ee ka qayb galaysa tartanka xifdiga quraanka kariimka ee hay'adda Al-Huda ay soo qaban qaabiso muddada bisha barakeysan ee Ramadaan kaasoo la magac baxay tartanka Daarur Rahma. Ardaydan ayaa ka kala socda deegaano kala duwan iyo waliba tuulooyin ku yaala Jamhuuriyadda Soomaaliland. Balgu horreynba magacaaga iyo deegaanka ka socoto. Bismillaah, magacaygu waa Cabdirasaaq Ciise Warsame oo ka socda gobolka Tagdheer magaalada Burco. magacaygu waa Sayid Cabdiraxmaan Ibrahim oo ka socda magaalada Wadaad. magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Cabdilaahi oo ka socda magaalada Kaamhaashin. magacaygu waa Maxamed Maxamed Adiid oo ka socda magaalada Laanmulaax. magacaygu waa Badr Aadan Habiib oo ka socda magaalada Laanqeyrta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo ka socda Hargeysa. magacaygu waa Maxamed Abdiwahaab Abdilaahi oo ka socda magaalada Buuram. ardaydan xufaadda ah ayaa deegaanadooda u matali doona isla markaana ka qayb gali doona tartanka Daarur Rahma waxaana ardaydan sanadkii hore ay ka hooyeen guulo la taaban karo iyadoo sanadkan uu dheer yahay in ardayga kaalinta koobaad uu ku guuleystay uu heli doono gaadiid iyo waliba abaalmarino aad u qiimo badan. Wahiib Sariyaan, warbaahinta nolosha islaamka gudaha markaska Daarur Rahma. warbaahinta nolosha islaamka.